بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وما بعد تاريخ ولحدي رمضان كن أفر بغلا فرتني كو تاريخ هجري تاريخ ميلادي قنوا سقالي لواتنك بشا أبريل لوذا كوني لواتنك ومال الأربعاء waxaan insha Allah taala isku daynaa in aan bishan Ramadaan aan juzka Quraanka u dambeeyo juz amma inaan tafsiirkiisa iyo laqmadiisa aan insha Allah taala dadka u soo gudbino ama Ramadaanka aan ku qaadano ujeedadu waxa weeye bishan Ramadaan waa bishii Quraanka Kariimka ah iyadii Quraanku way isleeyihiin shahru Ramadaan alladhi unzila fihi alquran marka bishani maadaama bishii Quraanka ay tahay Quraanka mudnaan khaasa in la siiyo akhriskiisa fahamkiisa iyo ku dhaqankiisa intaba maadaama marka aanan ka wada gaari kareynin munaasab waxaan u aragnay inay munaasab tahay u yaraan hal juzka Quraanka u dambeeya inaan insha Allah taala tafsiirkiisa qaadano juzkan ugu dambeeya waxaan u dooranay waa juzka inta badan dadku wada yaqaanaan waa mid labaad ee juzkan Quraanka u dambeeya juz amma wuxuu ka hadlaa oo boqolkiiba 90 u badan yahay mabaadiida waaweyn ee iimaanka oo asaasiyaadka diinta ayuu ka hadlaa wuxuu ka hadlayaa oo bini aadamka baraya nolol tan ka dambaysa inay jirto aakhiro iyo maalinkan ka dambeeya adduunyada ka dambaysa inay jirto waa xaqiiqo cid kale oo ka warrami kartaa ayna jirin wuxuu ka hadlayaan juskani inta badan suuradihiisu waxa kale ay aad u dul istaagayaan mabda la yiraahdo ilaahi tabaaraka wa taala ni'amkiisa iyo barwaaqada uu adoomadiisa siiyay kala duwan si ilaahay adoomadiisa isu baro ilaahayna ay nicmooyinkiisa ugu aqoonsadaan waxay sidoo kale juzkan juz amma mabaadida uu aad uga hadlo kamida adduunkani sida uu ku dhamaan doono iyo markuu dhamaanayo isbedelada dhacaya ee waaweyn iyo siday u eegyihiin adduunkani seebu noqon doonaa dhulkani buurahani badahan say noqon doonaan makhluuqaadkani say noqon doonaan muxuu ahaayay xaalad weyn oo adduunka ku soo socota isbedelka weyn ee dhici doona see u yaala see u egyahay ayay aad uga hadlaan waana macluumaad runtii meel kale aadan ka heli kareynin waxay ka hadlaan oo aad u dul istaagi doonaan sidoo kale muxuu ahaayay dadka labada qaybood ay u qaybsamaan dadka wanaagsan jidka wanaagsan haya iyo abaalgudkay leeyihiin adduunka iyo aakhiraba maxay ilaahay agtiisa ku leeyihiin dadka dhanka kale ilaahay dariiqiisa garan maray tabaaraka wa taala gaalada iyo munaafiqiinta iyo wixii jidkooda qaaday maxay abaal leeyihiin xagaysa ku dambeyn doonaan mabaadi waaweyn oo sidaas oo kale ah ayuu aad ay suuradahani uga hadlaan juzkan wuxuuna u badan yihiin quraankii soo degay intuusan nabigu sallallahu alayhi wasallam ka soo hijroonin Makka marxaladaas oo ahayd marxalada mabaadida waaweyn ee diinta la taasiilinayay gaalada lagu la dagaalamayay laga dhaadhicinayay yaani wax weeyaan waqtigaas marka soo degaysay dagaalka yaani waa dagaalka xujada iyo bayaanka dagaalka gacantu waa dambeeyay maadaama ay sidaas tahay marka maantana ay yaani mabaadida waaweyn tash badan lagu furay oo muxuu ahaay in badan oo dadka kamidana ay jahli badan kaga sugan yihiin way mudan tahay runtii in muxuu ahaay la dul istaago
waxaynu ku bilaabaynaa marka suuradda suuratu naba innagana aanu naqaano Soomaalida suuratu amma aan dhahno ayaynu ku bilaabaynaa waa suura makkiya cinda aljamiic marxaladii hore ee xilligii uu nabigu Makka joogay intuu soo hijroonin quraanka soo degay inay ka mid tahay ayaa la isla ogol yahay waata marka suuradii oo inoo bilaabatay الله تبارك وتعالى وحلي عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون درب سورة وحيكو بلابتي مبدئي هدا إنو كهليني ويناء أها محوءها آخر حساب تنكيدا محادع دونا نولش الضنبي oo ay gaaladu inkirsanaayeen oo lagu kari laa ayay durba suuradu ku bilaabatay wuxuu yiri Allah tabaaraka wa taala amma maxay xaqiisa ayay yatasaaluna isweydiinayaan yani waa an iyo ma oo istifhaamiyo isgalay marka alifta dambaa la gooyaa amma maxay xaqiisa ama shayga xaqiisa ayay yatasaaluna isweydiinayaan su'aashaas waxay u imaanaysaa shayga isweydiinayaan baa shay weyn ah yani usluubka luqada carabiga ah baa saa ku yidhi zaydun ma zayd su'aada marka sidaas oo kale u imaanayso shayga wax weyn ah shay weyn bay yani wax iska weydiinayaan hadana waa laga hadlo waxa la yiri anin naba'i warkii xaqiisa weynaa anin naba'i warkii xaqiisa yay isweydiinayaan al-azimi ee weynaa warka weyn ee ay wax iska weydiinayaan culimada qaar waxay leeyihiin waa quraanka kariimka waa waxyiga oo qul huwa naba'un 'aziimun waa ka suuratu saad ilaahi ku yiri tabaaraka wa taala laakiin waxa ka fiican in la yiraahdo waxay wax iska weydiinayaan ee halkan lagaga hadlayo waa bacthiga waa isa soo saarida iyo isa soo nooleynta iyo nolosha dambe oo ay inkirsanaayeen qaarna ay ka shakisnaayeen anin naba'i warkii xaqiisa wax iska weydiinayaan al-'aziimi ee weyna laana wax way isbedelka adduunka ku dhici doona burburka soo nooleynta dambe xisaabteeda abaamlarinta dhacaysa waa war weyn war sahlan ma aha warka weyn bay wax iska weydiinayaan alladii kaasoo warkaasoo hum iyagu fiihi dhaxdiisa مختلفون كوا اسكو خلاف سن أيهين ويسكو ديدنايين أي دحدودا اسكو ديدنا هذه الرأي اللي قبت فقهاء المفسرين تقاركود مرة وحوي أيجا وحي يقيب سنايين قال هذا لفتوضو قارنا وي إنكر سنايين إسا صوصاري دا نولش الضنبي ما بتشرتي تاقنايين قارنا وي كشك سنايين أيجا دحدودا مركا خلاف كو كتشري أما وحا لليه هاي وحا اسكو خلاف سن isa soo saaridii nolosha dambe isku diidani waa gaaladii oo diidan iyo muuminiintii oo sugaya labadaaba waa la yiri mid aad tidhaahdaba waa isku khilaafsan yahay oo ama gaal iyo muslim baa isku diidan ama gaalada dhexdoodii baa isku diidanaayo qaar ka shakisan iyo qaar diidan oo inkirsan bay isu dhaxyaaleen marka warka weyn ay isku khilaafsan yihiin bay isweydiinayaan الله تبارك وتعالى مركا وحو كدنبيسي هنجبات كودي يا هنجبات كلا هكجوجين مرنكا يا خلافكا يا سويدينتا وحلا سويديه ما هي كلا هكجوجين سيعلمون ويوغان دونان مركي اريمو عدادان بينينتودا يا انكراد انكريان علبتيدا دنبيه waxa ka dhasha way ogaan doonaan thumma marka kadib كلها كتشوجين سيعلمون هدنا ويوغان دونان سيعلمون ذا الضنبي متي هوري خوجينيسا mise macna ziyaada abay wadataa waxa fiican in laga dhigo macna taasiisa inay macna cusub wadato markasta oo ay aakhira u sii dhawaadaanba markay dhintaan oo ay qabriga galaan xaqaa'iq bay ogaanayaan sayaclamuuna way ogaan doonaan markay qabriga ka gudbaan oo ay qiyaamada tagaana xaqaa'iq bay ogaan doonaan markasto ay sii durkaan ilaa ay cadaabka ka galaan mar walba waxba u sii cadaanaya sayaclamuuna thumma kalla
sayaclamuuna waxaanay inkirsan yihiin ay diidan yihiin ee lagu kari la'yahay gadaal bay uga cadaan doontaa xaqiiqadeedana way dul istaagi doonaan sidaasaa laga wadaa maadaama marka aynu nidhi aayadahani sida xooga badani waxay ka hadlayaan waxa ay ka murmayaan ay ka doodayaan isku haystaan wax iska weydiinayaan waa isa soo saaridda iyo nolosha dambe maadaama ay tahay Allah tabaaraka wa tacaala siyaabo kala gedisan buu quraanka kariimka mabda'aasi u qeexa mar Allah tabaaraka wa tacaala waxa la muujiyaa awoodiisa iyo sida ay ugu fududahay marka la fiiriyo awoodiisu intay la eg tahay siday ugu fududahay inuu dib u soo nooleeyo adoomada mar waxa la muujinayaa Allah tabaaraka wa tacaala cilmigiisu siduu waasac u yahay oo xataa jirkoodu hadduu carradu cunto inaysan ilaahay cilmigiisa waxba ka hoos baxaynin mar waxaa la muujinayaa tusaalayaal baa la siinayaa wax dhintay oo la soo nooleeyey baa la tusayaa dhulkii oo abaaraystay oo ingegay oo nabaad guuray oo biyo yimaadeen oo roobkii yimid oo noolaaday baa loogu miisaalinayaa siyaabo kala gedisan buu marka quraanku mabda'aas dadka uga qanciyaa in laysa soo saari doono nolol dambe ay jirto tani marka waxa weeye aayadahan soo socdaay maadaama ay soo nooleynta dambe shaki geliyeen ama inkireen ayaa waxa la leeyahay oo loo muujinayaa bini aadan dhintay oo la soo nooleeyay marka loo fiiriyo waxyaalaha ilaahay abuuray ee waaweyn ee arkaysaan ee idin muuqda bini aadan dhintay oo dib loo soo nooleeyay wax weyn ma aha tiiba marka la tusaaleynaya ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa iyo intay la eg tahay iyo yaa tusaalayaal la siinaya ilaahay tabaaraka wa tacaala uu koonka dhigay si ay ugu qancaan in ilaahay awooda uu leeyahay oo soo nooleyn karo bini aadamka dhimashada kadib tiiba marka la guda galay Allah wuxuu tabaaraka wa tacaala alam naj'al soomana yeelin al-ardha dhulkii soomana ka yeelin mihaadan gogol soomana ka dhigin dhulka makhluuq aad u weyn waaye makhluuqa saa u weyn ilaahay baa tabaaraka wa tacaala ka dhigay mid sidii gogol oo kale u yaala oo aynu ku dul soconno oo inoo layliyan oo aan ina diidaynin oo aan ku xaaja gudanayno oo aan ku dul soconayno oo aan ku dul seexanayno oo aan beeranayno oo aan ku dul dhisanayno oo saan doonno yeelayno waa gogasha laynoo fidiyay waay yaa fidiyay makhluuqa inta leeg yaa saa u fidiyay alam naj'al miyana yeelin al-ardha dhulkii mihaadan gogol fidsan miyana ka dhigin wal jibaala buurihiina soomana ka dhigin awtaadan dhakawyo awtaad waa jamcu watadka waxa la yiraahdaa teendhada marka la dhisayo yani baalaha yaryarkee dhulka la geliyo ama bir ha ahaadeen ama qoryo la soo gooyo ha noqdeen oo dhulka loo geliyo kadibna xarkaheeda lagu qabto oo hayaa la yiraahdaa ama si kale hadaad u dhigtaba haraga marka la fidinayo yani waxa weeye dhinacyaha ayaa waxa laga dhajiyaa yani dhakawyo kaasa la yiraahdaa waxa laga wadaa buuruhu dhulka waxay u yihiin sidii dhakawyadaasi haya oo kale oo dhulka waxay ka ilaalinayaan inuu dheeliyo dhulku inuu dhaqdhaqaaqo dhulku inuu bini aadamka la dheeliyo ama idraab ama isbaraambar inuu sameeyo ayay ka ilaalinayaan waa ka ilaahay inoo sheegay tabaaraka wa tacaala li alla tamida bikum wa buurahaasi hadayna dhulka korkiisa ku fadhiyin dhulka laguma dul noolaadeen marka wal jibaala buurihiina soomaanan ka yeelin awtaadan dhakawyo dhulka haya oo u diidaya dhulku inuu dheeliyo wa khalaqnaakum soomana idin abuurin aadamihi wa azwaajan idinkoo noocyo ah yani wax way idinkoo lab iyo dhadig ah oo in lab iyo dhadig la idinka dhigo idinkoo hadana isku jinsi ah si aad isugu raaxaysataan tarankii bini aadamkii jiritaankiisina u suuroobo ilaahay nicmatiisa waa ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مركا النوعية واحد لب يددك هدنا يعني إسلام وإسكن وإسكن ترمية وذا ترمية صومانا إذن كدقون واحد وجعلنا صومانا كي لنومكم هرددين صباتا
mid dhaqdhaqaaqa goyn waay yani hurdadu ruuxa waxay jaraysaa dhaqdhaqaaqii iyo socodkii iyo shaqadii bay goynaysaa si uu u nasto si uu raaxaysto yani waa isbedel jidhka bini aadamka ku dhacaya ruuxiiba siduu u ordahayo u shaqaynayo ayuu hal mar muxuu ahay xaalad kala gelaya xaaladaasi marka waxa weeye shaqadii iyo daalkii iyo rafaadkii iyo wixii buu ka nasanaya haddayna hurdadu jiri lahayn bini aadamku ma jireen laana wuxuu baabi'i lahaa sidaas daraaddeed hurdadaasi dhaqdhaqaaqi iyo shaqadii bay jaraysaa waana nasiinay keenaysaa ruuxu inuu nasto oo raaxaysto kadibna uu yani waxa weeye soo kaco isagoo oo nashaadsan isagoo oo awood leh isagoo firfircoon isagoo waxqabad yani wax qabanaya macnaha wajacalnaa nawmakum subaatan iyadana waa yani waxa weeye wax cajiiba waay wajacalnaa soomaanaa yeelin alleyla habeenkii libaasan astur soomaanaa ka yeelin sidii aan iftiin ugu jirno ayaa habeenku imaanaya markaasuu wax kasta kala asturaya waa ku qarinaya yani wax weeyaan sidii mara aad huwatay oo kale ku asturtay buu habeenkii adduunka u daboolaya u asturaya wajacalnaa soomaanaa yeelin annahaara maalintii macaashan aydaa macaash mid oo muxuu ahaayey aada macaashtaan waqti aad ceeshtaan ilaahay baa jadwalkaa dejiyey adduunkao dhan baana jadwalkaa ku socda kiisa gaalka ilaahay diidan iyo ka ogolba waxay ku socdaan jadwalka ilaahay dejiyey maalintii waa iftiin waa la foofayaa waa la shaqo tegayaa iftiinkaasaa lagu shaqaysanayaa habeenkii markuu soo galo kulli guryaha la wada gelayaa waa la seexanayaa waa la nasanayaa yani halka saasaa ilaahay u qaybiyey tabaaraka watacaala qaybinta noocaasa ilaahay adduunka uu jadwalkaa u dejiyey waa jadwal lagu wada socdo awood inaga sarraysaa samaysay wax bini aadan iyo makhluuq intaasoo yani uu adduunka dhan u samayn karo halkaa jadwal oo iftiin lagu shaqaysto iyo mugdi lagu seexdo haddana maca daalika marka la shaqaynayo qoraxda iyo iftiinkeeda ayaa jidhka nashaad gelinaysa baynamaa habeenkii mugdiga iyo jidhku inuu nasto ayaa munaasabad isla leh oo ruux xataa maalintii hadduu seexan rabo waa inuu meesha mugdi ka yara dhigto sidaas weeyaan wajacalnaa soomaanaa yeelan annahaara maalintii macaashan mid yani waxwa aad ceeshtaan mid aad shaqaysataan ood fooftaan ood shaqo tagtaan waa wabanaynaa soomaanaa dhisin fowqakum korkiina 7 shidaadan oo adag korkaaga haddaad fiirisana 7 samo oo isa saaran oo dhismahoodu aad u adag yahay muxkam yahoo la sugay oo cajab badan baa korkaagana ka muuqda allah baa dhisay tabaaraka watacaala wajacalnaa soomaanaa yeelin siraajan wajacalnaa bimacnaa khalaqnaa waytani wajacalnaa waxaanu abuurnay ama soomaanaan abuurin siraajan faynuus waxaajan oo aad u ifaysa waa qoraxdii wey yani waxa weeye sidii faynuustoo kale ayay dadka u iftiiminaysaa masaalixdoodii si ay u gaadhaan say danahooda ugu hanuunaan ayay u iftiiminaysaa dhulka korkiisa iyo meelihii ay ku noolaayeen waxaaj weeyo iftiinkeedu aad buu u daran yahay way walacwalaclaynaysaa iftiinka qoraxda ilaahay tabaaraka watacaala uu u sameeyey marka laga tago inay dadkii u iftiiminayso shaqooyinkii waxay qabsan lahaayeen ay u iftiiminayso ku shaqogalayaan marka laga tago dhanka kale nooluhu qoraxda kama maarmo qoraxda iyo iftiinkeedu nooluhu kama maarmo manaaficdiisii oo dhan baa ku jirta jirkii bini aadamka u baahan oo fiitamiinaadka jirka qaar ka mid ah qoraxdu ka imaanaya yani beerihii iyo dalagii qoraxdii bay u baahan yihiin midhihii inay bislaadaan qoraxdii bay u baahan yihiin yani waxa weeye dhulkan iyo koonkani qorax la'aan ma jiri karayo marka iftiin kaliya ma ahee noloshiibaa ay qayb ka tahay macnaha waanzalnaa waxaan soo dejinnay buu alla yidhi min almucsiraati daruuraha xaggooda waxaan ka soo dejinnay maaan biyo thajaajan oo si istaba jooga u shubmaya mucsiraadka waxaa la yidhaahdaa daruurahana waa lagu fasiraa dabaylahana waa lagu fasiraa laakiin sida ibnu jariir iyo ibnu kathiir iyo rajaxayaan mucsiraadka daruuraha ka dhig waxaana la yidhahdaa asalka mucsirka waxa la yidhaahdaa waa shayga yani waxa weye dhacaanku ku jiro oo la maroojiyo maroojinta waaye waa shay marooqsamaya ama miirmaya ama markii la tuujiyo tuujismayo wixii dhacaanay ku jiray uu ka soo baxayo waa saarka saas la yiraahdaa mucsirka saas way macna ama muctasirka marka
daruuruhu waad aragtay iyadoo daruurta weyn oo biyihii ku jiraan oo buuxaan ayay hal mar biyihii sii daynaysaa way miirmaysaa marka mucsiraadka daruuraha laga wadaa sidaasaana loogu magacaabay biyo waxay sii daynayaan marka shubmaya oo isdaba jooga allah tabaaraka wa tacaala baa ka soo dejiyey biyahaasina waa biyaha roobka waay biyaha roobkuna in alla inta nafleydoo dhan inta alla nafley oo dhan baa ku nool saas daradeed haddii dhowr sano ilaahay roobka joojiyo dhulka laguma noolaan karayo waxaan u soo dejinay buu allay biyahaasi daruuraha waxaan uga soo dejinay linukhrija si aanu ugu bixinno bihi biyaha sababtooda xabban badar waa yani waxa weeye quudka beeraha ah ee la kaydsadee kaydka geli karaya sida maalan badarka masagada muxuu ahay galeyda qamandida bariiska xabbi baa la yidhaahdaa kayd bay galaan wanabaatan nabaadna si aan ugu soo saarno nabaadkana waxaa la yidhaahdaa waa waxyaalaha cagaarka lagu cuno isagoo cagaaran ayaa la cunayaa ama xoolihii baa cunaya ama bini aadamkii baa cunaya wajannaatin baanu ku soo saarnay yani aseendooyin alfaafan oo kulansanoo isku dhex jira jannaadka waxa la yidhahdaa waa beeraha geedahoodu waaweyn yihiin alfaafkana waxa la yidhahdaa waa geediyo intay kulmeen laamahoodii ay isdhaafeen oo isgaleen alfaafan isku duubmeen ama ay isdhexgaleen ama isku marmeen taana waanu ku soo saarnay waay markay biyuhu samada ka yimaadaan beertii caadiga way soo saarayaan daaqii iyo dalagii way soo saarayaan waxaa lagu soo saarayaa geedaha waaweyn iyo beeraha waaweyn aseendooyinkii baa soo baxaya oo intay madaxa isla galaan laamahoodu isdhaafayaan intaasoo dhan soomaanaan samaynin buu alla leeyahay intaasoo dhan soomaanaan samaynin jawaabtu waa haa ma cid kalaa sheeganaysa maya mayadaa saa iska dhigtay oo saa iska dhigi karaysa maya ma cid kalaa sidaa ka dhigtay maya allah keligii baa ka dhigay allaha marka intaa sameeyey oo makhluuqaadka waaweyn iyo cajaa'ibtaasi sameeyey in markaad dhimataan kadib uu idin soo nooleeyo maxay ku tahay soo wax aad u fudud ma ah marka dalaa'il waay adiladaas waaweyn baa la siiyey oo ilaahay qudradiisa iyo awoodiisu yani inaynan dhammaad lahayn oo nihaayo lahayn wax walbana uu kari karayo ayaa tusaalayaal la siiyey bal tan fiiriya bal dhulkii fiiriya bal samadii fiiriya bal muxuu ahay daruurtan iyo biyahan fiiriya bal beerahan soo baxaya fiiriya haddaad aragtaan waxaan la nooleynaya arka wabilmunaasaba yani waxa weeye marka aadamaha la soo nooleynayo sida xadiiska nebiga ku sugan sal alla alay wasalam marka dib loo soo nooleynayo nebigu wuxuu inoo sheegay sal alla alay wasalam roob baa di'i doona roobkaasi markuu do-o biyihii dhulkay galayaan markay dhulka galaanna yani waxa weeye jidhkii bini aadamku carrada ku baaba'ay ayay biyahaasi gaadhayaan biyahaasi marka meeshay gaadhaanba dadkii ku jiray ayay dib u soo noolaanaya dib bay u soo baxayaan sida biyaha roobkuba dhulka markay gaadhaan wax uga soo saaraan bini aadamkuna inuu dhulka dib uga soo noqdo ka soo baxo nolol cusub soo noolaado roob baa ka horeyn doona di'i doona sida xadiiska nabigu tilmaamaya sallallahu alayhi wasallam inta markii la sheegay oo loo cadeeyay ilaahay inuu awood u leeyahay inuu dib u soo nooleeyo ayaa su'aal baa marka iimaanaysa haddii laysa soo nooleynayo waa goorma maxaa loo dibdhigay tiibaa laga jawaabay marka inna yawma alfasli maalinta kala saaridda maalinteedu kala xukumidda addoommada maalintaasi la kala saaraya la kala xukumayaay kaana wuxuu ahaaday maalinkaasi miiqaatan mid lagu waqti qabtay waqtiga ballanta la qabtay iyo waqtiga loo qabtay maalinkaasi waa maalintaa la iskala saarayo maalinkaasi waqti bay marka leedahay saas way macnaha maalinka ilaahay waqti buu ugu talagalay waqtigaasaana lagu mudeeyey wamaa nuakhiruhu ila liajalin macduud muddo tirsan oo la tirinayo socota ayaa loo dibdhigayaa waqti baa ilaahay ugu talagalay ilaahayna waqtiguu wax qorsheeyey ee qoondeeyey kama soo hormariyo marka inna yowma alfasli kala bixinta maalinteeda khalaa'iqda la kala saari doono kaana wuxuu ahaaday miiqaatan mid lagu waqti qabtay yowma maalin ayaa lagu waqti qabtay yunfakhu la afuufi doono fi suuri buunka la afuufi doono fata'tuuna markaasaad imaanaysaan
afwaajan idinkoo koox iyo guuta guuta idinkoo guuta guuta ama kooxa ama group ayaad imaan doontaan waay maalinkaas isaga suurka la afuufo suurku waa makhluuq ilaahay abuuray oo buun ah malag baa u xil saaran Israafiil la yiraahdo uu diyaarsan yahay laba goorba uu afuufi adduunkan marka la gabagabeynayo oo wixii saharay la afjarayo la khatimayo uu afuufi kadibna wixii noolaa oo dhan baaba'ayaan adduunkani waa isku dhaxyaacaya mar labaadna wuu afuufiyo marka dib loo soo noqonayo la soo nooleynayana wuu afuufaya labadaas nafkhaba way jiraan waa mid xadiidka Abu Hurayra nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay labada afuufisood ee buunka la afuufayo 40 baa u dhaxaysa markaasay weydiiyeen Abu Hurayra xadiiska wariyay ma 40 bariba waan diiday buu ma 40 bilood ba waan diiday buu ma 40 sana waan diiday buu bimaana wax way ma garanayo 40 baa lagu yiri markay 40 kaasi dhamaadaan 40 ku waxyiin Allahu a'lam ayaa markaasi Allah tabaaraka wa taala samada wuxuu ka soo dajinayaa biyo ka keenaya biyahaas ay marka dadkii soo dhalanayaan oo dhulka ka soo dhalanayaan sida dalaga iyo daaqoba u soo baxo kale tayib shay ma jiro bini aadamku markuu dhulka galo baabao wax kasta waa la baabaya dhulka cunay jirkiisa dhulka cunay macalafihiisa ma xaragiisa kulli laakiin waxa soo haray sida nabiga inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam lafta la yiraahdo dabanicista lafta dabanicista la yiraahdo oo lafta dhabarka meesha ay ku dhamaatay u dambaysa taasa soo hadhaysa carradu ma cunayso ilaahay baa u diiday meeshaasay oolaysaa kadibna iyadaasa bini aadamka marka dambe ayaa hadana laga abuuri doona dib la isugu soo celin doona macna xadiidkaas uu tilmaamay طيب marka yawma maalin yunfaqu al-afufa fi as-suri fata'tuna markasad imaanaysan afwaajan idinkoo kooxa yani group ummad kasta iyo nabigeedii rasuulkeedii la socdo ama meehe cid walbo isku mabda ahayd isku aqeeda ahayd isku amal ahayd ba wala israacinaya munaafiqiintii gaaladii sii darayd madaxdoodii kuwii dhexdhexaadka ahaa kuwii sii hooseeyay kuwii muuminiinta u fiicna kuwii dhexda ahaa yani wax way muxuu ahay naf walba ciday la amal ahayd baa la raacinaya ama meehe nabi walbiyo dadkiisii baa la isla keenay sidaas way macna wa futihat waxa la furaya as-samaa'u samadii baa la furay فكانت مركاسا waxay noqotay abwaaban irido waa isbedelka koonka ku dhacay waa samada la furfuraya way isaysataa hadda meel laga gala male hal meel oo loogu talagalo malaa'ig waardiye taagan tahay mooy hadda la iskama gali karo laakiin xilligaasi samadu way jilci irida ka furmi doona فكانت abwaaban iriday marka noqonaysa iridahaasi waxa loogu talagalay malaa'igta ka soo daadanaysa malaa'igta ba ka soo galaysa ila malaa'igta korbay jirtaa سيد الله القرآن كوشة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا ملائكة ومركة كسو دقيسة وإيمانيسة معنا وحلو السعودي أدوما دي إن لك لسارو هي محكمة دي بالله السعودة والسيرة وحل السعودية الجبال بوره فكانت وحي نقطي بوره سرابا دلنتات بورهاني دولك كوركي سسارين حوليس كاد أركتين لك مراحل bay mari doonaan mar waa la fududeyn sida cudbiga oo kale noqonayaan marna waa la shiidaya marka sidii bus oo kale noqonayaan marna waa la bitinaya markaas waxay muxuu ahay u soconayaan sidii yaani wax weey daruur socoto kale noqonayaan marna wax aan jirin oo kale noqonayaan waxaad moodaysaa shay jiro kale aad moodaysaa laakiin waa dhalanteed marka ugu dambeysana waa la baabiinaya wayasalunaka 'anil jibal ضرورها كويدين ينبورها فقل ينصفها ربي إلهي بابينيا ولا الشيدة ولا بابينيا دول كمركا وحو نقونيا ميل هوسنا ماله ميل تاغنا ماله دول كدن ولا السميا معنا مركا تاسا لغا هدلay وسيرت لسعسيه الجبال بوره فكانت مركا waxay noqotay saraban dhalanteed oo kale daan dabangaal ama dhalanteed wax aad moodayso shay xaqiiqa laakiin aan waxba ahayn waa in jahannama intaasi markay dhacdo adduunka isbedelkaasi ku dhaco xagee la aadaya waay laba loo qaybsameeyaa laba hooy baa jira mid saddexaad ma jiro hooy waa jahannama iyo naarta hooyna waa jannada iyo ilaahay naxariistiisa shumeysay taala way labadii baa marka la sheegay in jahannama naarta jahannama kaanat waxay ahaatay mirsadan mid
تعمل يعني عمل قلب بدن عمل قلب كوحل هذا أما رب قلب شيء أديكون أوجين أو كتلا جشانين ميل كوجو جبناي وميل كوجو سيتشرا أما عدو أما وحكوية ليا أيالي هذا مركا جهنم ضد كذيب وحي أسو جيسا سيدك مرصاد كواساس ويديار صنتهاي وينسو جيسا ضد كذي يعني ويصبري لعضة ضد كذيب يسو جيسا كانت وحي أهات مرصاد كاسي وحى كل علوم ذي لهذان يعني ما دام جهنم الله مريض دونه مركا جنة الله صعده جهنم الله سيم نار الله سيد المري ما دام الله ضل مريو هل كاسا وحي كسو جيسا مركا ضد كذي dadkii iyada loogu talagalay gudbi maayaan marka meeshaas ay ku qabsanaysaa macna liltaaqiina xaal ay u sugnaatay jahannama kuwa qooqay ma'aaban bay ahaatay mirsaadka laga bedelaya ma'aaban bay ahaatay meel loo noqdo liltaaqiina xaal ay u sugnaatay kuwa qooqay jahannama yaa galaya nin kibray ruux qooqay ruux isla weynaaday ruux ilaahay xuquuqdiisa ka kibray ruux khalqiga iska weynaysiiyay kibiraani qooqay ayaa gali doona jahannamo iyada iskale ma'aaban meel loo noqday ahaatayo kuwaasi u laabtaan laabithiina xaalay ku nagaanayaan fiihaa jahannamo dhexdeeda axqaaban sanado badan oo isdaba yaalla axqaabku waa jamcu xuqubkana waxa la yidhaahdaa aimada salafka iyo mufasiriinta salafka qaarba waxbay ku sheegaan mudday ku sheegaan 80 sano 70 kun oo sano waxbay sheegaan laakiin waxa weeye waa sanado istaba yaala oo qayb markay dhamaatana qaybtii kale hadana bilaabanayso oo aan dhamaad lahayn saasay markay isku waafaqayaan aayadaha kale quraanka yiri naarta way ku waarayaan ma aha intay muddo ku jiraan inay ka baxayaan laabithiina xaalay ku nagaanayaan fiiha jahannama dhexdeeda axqaaban sanado isdaba yaala ama waayo iyo muddooyin isdaba yaala oo isdaba socda la yaduquna dhadhamin maayaan fiiha jahannama dhexdeeda bardan wax qabow ah ولا شرابا يعبتان تونا يعني أما بردا وح قبوة ودن باس وقلي وح لعبو قبوة هوا قبوة محوها هاي هرد قبوة هردنا في مصرين تقاربا كفسرة وح قبوة ودن من مايا طبعا قبوة قميت كان نفع قال على هالليا لكن قبوة برفو عذابه سوى يعني قبوة نمديس عذاب كوه سوى زمهرير ويهليا أو مرنا كليل بالو عذاب مرنا قبوة درن هذا لا ميدن لليه هي لا يذوقون فيها بردا قبوغاس waxa laga wadaa qabow nafci heli maayaan wala sharaban abitan heli maayaan illa hamiman biyakulul mooye waghasaaqan iyo arunka biyad kulkoodu meeshii ugu dambeeyay gaaray ayaa la waraabinaya markay naarta kubtaan oo oomaan oo yahanna la waraabiyo yiraahdaan ayaa biyo kulul baa la waraabinaya waxa kale oo la waraabinaya ghasaaqa waxa la yiraahdaa waa arunka malaxda iyo dhacaanka iyo qashinka markii dabku gubo ka miirmaya jirkooda waxa la ururinaya markaas la waraabinaya abitaankoodu kaas casiir looga dhigay jazaan wala abal mariyay juzu wala abal mariyay jazaan abal marin wifaqan oo waafaqsan li a'malihim wa abal marin taasi oo in jahannama sida loogu cadaaba lama dulminin lama dulminin amalkii ay la yimaadeen iyo aqeedadoodii oo bay waafaqsan tahay oo ay ku aadan tahay oo ay munaasib ku tahay maxay yeelay innahum iyagu kaanu waxay ahaayeen adduunka markay joogeen la yarjuuna kuwa aan rajaynin ba ahaayeen xisaaban wa xisaaba mayna rajayn jirin mayna ku tala gashanayn kamana ayna baqaynin in la iska daba iimaan doono oo la isla xisaabtami doono oo ilaahay hortiisa iyo maxkamad la tagi doono qorshaha ugu ma jirin وكذبوا ويبينين بآياتنا آياتها نغنا ويبينين كذابا أي تكذيبا بينين وحي آياته ويمد آيات كان كونيغا إلهي قدرتيسي أوديسي حكمتيسي كتوسيانا بينيه وحما ينكو قادنين آيات كي تنزيلغا إلهي سودجيي الرسول شو سو ديبينا ويكو غان سيدين وماشي wax ka qaadan lahaayeen طيب وكل شيء واحصينا وان كوبنay كل شيء wax kasta احصيناه وان كوبنay كتابا قرال بانكو كوبني ماشي iyagu ayna xisaab ku tala gashanayn iyaga wala la xisaabtamay wala daba socday malaa'ig ba u xil saarnayd wax alla wixii ka soo fula afkooda iyo adankooda wala qorayay
wixii oo qoran diiwaankiisii baa la soo hordhigayaa iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba baa leeyahay adeer diiwaankaaga akhriso isagaa maanta kugu filan cid kaleeto xisaabiya adaaba isugu filan markaad akhrisato wa kulla shayin wa axsaynaahu waan koobnay kulla shayin shay kasta axsaynaahu waan koobnay dheh kulla shayin shay kasta axsaynaahu waanu koobnay kitaaban qoraal baan ku koobnay ama maktuuban isagoo qoran yani malaa'igtaasaa wax walba qoraysay ha yaraato ha badnaatee maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waa faduuquu dhadhamiya marka waxaa lagu leeyahay cadaabkii markay galaan oo ay jahannamo galaan oo ay yani wax weeye ay cadaabkaasi dhadhamiyaan ayaa haddana damiirka laga dilayaa waxaa la leeyahay faduuquu dhadhamiya cadaabkaas dhadhamiya falan naziidakum idin kordhin mayno ilaa cadaaban cadaab mooye waa meeshii ugu dambeysay waa mufasiriinta waxaa laga sheegay aayadda qur-aanka yani ahlu naarka ugu daran inay tan tahay inta hore o dhan rajay qabaan ama uun waxoogaa laydinka fududeeyaa la khafiifiyaa maalmo waxoogaa laydinka yaradaayaa laakiin markii la yidhi cadaabkani waa uun sii karaar qaadanaya maalinba maalinta mar ka dambaysa waa sii siyaadaya saas way macnaha mar walboo jidhkoodu gubto jidh baa loogu bedelaya mar walbo naartu ay waxoogaa yaro damto oo yaro khafiifto waa la holcinaya sidaasay ku jirayaan faduuquu dhadhamiya falan naziidakum idin kordhin mayno ilaa cadaaban cadaab mooye wax kale idin kordhin mayno mar walba cadaabku waa idinku sii siyaadaya ee dhadhamiyaa la leeyahay sidaas waa abaalkoodii waaye maxaa yeelay allahoodii abuurtay ayaa lagu kari waayey taasi waa kooxdii waa munaafiqiintii waa gaaladii waa mujrimiintii waa wixii adduunkan la kari waayey waa wixii ilaahay wuxuu sheegay waxyigiisii iyo rusushiisii aayaadkii waxba ku qaadan waayey waa wixii madaxayda laga iskibriyey ee qooqay way halkaasi ku dambaynaya waa la qooq jabinaya waa la kibir jabinaya qoladii kale ay noo laaban marka dadkii ilaahay ateecay akhyaartii jidka ilaahay maray rabbigood aqoonsaday daacadiisa iyo waajibaadkiisa gutay xumaantii iyo wixii xumaa ka tegay ilaahay ka amar qaatay waa kuwa inna lilmuttaqiina kuwa alla ka baqa waxaa u sugnaaday mafaazan kuwa ilaahay ka baqa waxaa u sugnaaday mafaazan makaanu liibaan ama liibaan baa u sugnaatay mutanazahna waa la yidhahdaa dalxiis yani liibaan bay leeyihiin ama meelay ku liibaanaan xadaa'iqa baa u sugnaaday beero waaweyn aseendooyin beero waaweyn bay leeyihiin wa acnaaban iyo cinabyaal xadaa'iqda inta badan waxaa loo isticmaalaa geedaha timirta ah geedaha waaweyn ayaa loo isticmaalaa wa acnaaban iyo cinabyaal bay leeyihiin wa kawaaciba taasi waxa weeyaan waa liibaantii laga hadlahay waa beerahaas iyo cinabkaas iyo dhankii markay shahwadooda gudanayaanna iyadana waa laga hadla waxa la waa kawaacibana way leeyihiin kawaaciba gabdho naasa kuuskuusan atraaban oo isku da-aad ah kawaacibtu waa jamcu kaacib kaacibkana waxaa la yidhaahdaa gabadhu markay naasakeen tahay oo naasaheedu aysan muxuu ahaayey ay kuusan yihiin oyna weli dhicin ayaa la yidhaahdaa kaacib naahidna waa la dhahaa wa kawaaciba waa xururciintii waa yani dumarkii jannada waa atraaban oo haddana isku da-aad ah oo mid duqa iyo mid yar iyo mid laga da'weyn aan lahayna kulligood waa siman yihiin waa da-aad waa isku da'wey wa ka'san bay leeyihiin ama u sugnaaday koob khamro ah dihaaqan oo buuxa yani waxa wey dhanka waa faakihadii waa ilaan waxa weye waxna waa cuntada quutulyoomka daruuriga waay waxna waxyaalaha lagu faakihaysta waa khamradii waay khamradaasi ka'siga koobku markuu buuxaa la yidhahdaa dihaaqana waa lagu sii adkeeyey koobku markuu macnaha ay wax ku jiraan baa la yidhaahdaa dihaaqana waa markuu buuxo waay koob khamro buuxay leeyihiin khamradaasi jannada taalaayay tan adduunyada way ka duwan tahay oo waxay kaga duwan tahay waa marka koowaade ma urayso tan adduunyadu way qarmuun tahay waa marka labaade maanka iyo maskaxda wax ma yeesho waa marka saddexaade way macaan tahay yani waa lagu faahikaystaa fahmay leedahay ayib laa yasmacuuna ma maqlayaan fiiha jannada dhexeeda laqwan hadal xun oo saaqid oo baadilon qiimo lahayn maqli maayaan walaa kidaaban been isbeeninna ma maqlayaan takdiib way macnaha yani wax weeyaan dhegahooda ayaa waxaa laga ilaalinayaa wixii la dhibsadoo dhan dhegtu waxay dhibsataa laga ilaalin ishu waxay dhibsataa laga ilaalin sanku wuxuu dhibsadaa laga ilaalin yani waxa weye wax alla wixii yani jidhkooda dhibsadoo dhan waa laga ilaalinaya marka maqli maayaan laqwigu waa hadalka cantara baqashka ah ee dhegta dhibaya een qiimaha lahayn kidaabkana waxaa la yidhahdaa waa isbeenin yani beenaalaa tahay may adaa beenaala ah been baad sheegtay waxaasi maqli maayaan laanna hadal fiican ma aha waxaasaa marka dhegahooda laga ilaalinaya waxay la mid tahay
آية كلا الله تبارك وتعالى ويري لا لغو فيها ولا تأثيم هذا القيمة الدراء ونقيمة لها إن شاء الله دحية معها تأثيم إن بين ليسكو حكمنا معها بين ليس يعني بينالتها إن بين ليسكو حكمنا إن شاء الله دحية معها جزاء ولا أبال مري جزاء جوز ولا أبال مري جزاء أبال مرين ومن ربك حق ربك كأهات عطاء سيسمو أيالسي حسابا أو كفلا أو بدن أو كفلا أبال كاس إلهي حق سوكا هذا سيسمو حالسي كفلا ديق إلهي أو كفلا ومركي لسي الرالي يكون قنيان كوقن عيان أو أينن وحكى لأصيبه هنين مركي جنة اللي وحي لسيو أيا ربي وحولي هي أهل الجنة وهي ميدين سيادية مركاسين أو ربي محاد نو زيادنا ونقد من معان نو دي منو نو سياد مركا وحوي وحكو في لنبالسي رب السماوات من ربك سيبد الكتا جزاء من ربك رب السماوات كأهذا أبال كاسو من رب السماوات سماوات كربك وذا حقي سكأهذا والأرض يدولك دولك إيا السمادن اللي إسكالها حقي سأيو أبال كاسي كأهذا إيا وما بينهما سمادا يدولك وحي أود حيبا الرحمن إن حريس تبنا الله أدومدي سأقول حريس بدن سمادا يدولك وحي أود حيانا إسكالها أيا أبال كابحيي لا يملكون مهنا كران منه ألا حقيس خطابا حال حق الله كهذا خطابا هذا المهنا كران ما ملكين كران مركي آخر الله تقو الضومض ووضا بقيا ولا وذا هيبي سنيا إلهي بالغا هيبي سنيا عيدنا ما هاد لكرتو عيد إلهي انتي سو تاكتو هذا الكل ديرن كرتا ما جرتو لا يملكون منه خطابا وحي لم يتهيو كله آيات بدنو إلهي تبارك وتعالى وليه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه لا معناه نف هل كرتماني كاسي ما جرتو كل نوال بوافورا وانا بقيا لا يملكون مهنا كران منه ألا حقيس أما منه حال حق الله خطابا هذا وحضلو إلهي اللوتشي دي عد ملكين كرتاي ما جرتو أهل السماوات كي يا أهل الأرض كي يا كل والا وضا بقيا اللهم ضد بالله أقولان يا إني هلان وشفاعان وضدك مؤمنين تاوى لكن يغلفتو إذن يوم مال أيين عدنا ملكين كرين هذا يقوم استاغي الروح ملك الجبريل أما بني آدم كي لبضوا ولا فسرها والملائكة ملائكتي كلتنا استاغي صفا أيقوا صفصفا استاغي لا يتكلمون لما هالليان مالين كاسي ملائكتي الصفف بيو استاغي ملك الجبريل نوى استاغي طيب أما روح ذا بني آدم كي كردك بني آدم كي نوى إيمانيان ملائكتي نوى إيماني سيضوا صفصفا لا يتكلمون مهل لكران مخلوقات كيوا إلا من عدمويه أذين إذمي له إساق الرحمن الله نحريست بدني وفصحي وأقول هذا إنه هلو وقال هدنا يري صوابا هذا التوصن يري حالة وضع عدنا مهل لكرتو إله بألقى وذا هي بسنة يلقى بقيا حتى وحكى الإسكار في الرسول إلهي صدر صدي مهل لكران ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل رسول إلهي أوليبا مرلو إدمية بهل لكريس وليبا الرسول إن بدن وعدر دارنا يعني عيد مركا هذا الكل يرن كرتو سو استاغي كرتا ما جرتو إلا عيد إلهي أو إدمي كدبنا هذا التوصن يري مويه هلكا عدلمada qaarkood waxay leeyihiin waa shafaacadii uu tilmaamay shafaaca al-uzma oo khalaa'iqdu markii banka qiyaamada la isugu yimaado oo ay rafaadaan muddo joogan anbiyadii bay u tagayaan nabi walba waa cudur daaranaya marka u dambeeyay nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaas waxa la leeyahay ilaahay noogu tag noogala hadal hana la kala dareeriyo hana la kala xukumo markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam uu tagay ana leebul maanta arshiga hoostiisa ku sujuudaya markaas Allah wuxuu ku leeyahay maxamedow sootos wajiga kor soo qaad weydii waxaad rabto shafaac waa laga aqbali markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam shafaacada weyn buu shafaacaya marka isagaas loo idmaya hadal wanaagsan waa ku hadlaya waa ra'yi culimada qaarkood ay qabaan qaarna waxay leeyihiin ma ahe illa man adina lahu arrahman wa qala sawaban wa dadka shafaacayo dhan shafaacada nabiga kow ka tahay laakiin muuminiintu way shafaacayaan laakiin gormay shafaacayaan kow in ilaahay uu idmo idan la'aan cidina isaga soo istaagi karto wadaad xirtiisa iska kaxaysan kara ma jiro waalid ilmihiisa iska kaxaysan kara ma jiro nabi umadiisa intuu iska yimaado janno ku dareerin kara ma jiro cid soo istaagi karto hadli karta ma jirto illa inuu Allah u idmo
markaana hadal sawaab u yiraahdo mooyee halka marka hadii laga dhigo shafaacada guud laga dhigo waqala sawaban waxay noqonaysaa adduunka intuu joogayna hadal sax yiri oo waxay marka noqonaysaa illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun ahlu tawhid marka noqonay wa adduunkii ku soo ashahaatay ahlu tawhid aha dalika kasi al yawm malinki wa al haqq ay haqqaha maalinka laga waramay isa looga soo sheekay waa maalinka dhabta ee haqa faman shaa ruuhi doona marka ittakhadha wuu samaysan ila rabbihi xaqiisa ma'aban meel u noqdo hadda la jooga ruux walba meeshii uu tagi lahaa ha diyaarsado meeshuu u noqon lahaa diyaarsado maxaa lagu diyaarsadaa iimaan iyo amal saalix meesha tagi lahayd iyo gurigaagii diyaarso hadda diyaarsan weydo banaanka taalawa saas oo macnaha meel xun baad aadaysaa inna anagu andarnaakum waan idin dignay cadaaban idin ka dignay qariiban oo dhow inuu dhow yahay macnaha uu soo socdaa wixii soo socdana waa dhow yahay waa iimaanaya yawma maalin cadaabkaasoo yawma maalin ahaaday yanduru uu fiirinayo almar'u ruuxi ma qaddamat wixii ay hormarsatay yadaahu labadiisa gacmood labada gacmood baa laga cabiray laakiin isaga laga wada ruux walba wuxuu hormarsaday uu maalinka fiirinayaa waynu halmaanay hadda oo maxaynu sameeynay wax badan waynu halmaansanay laakiin isagoo qoran baa leena hor keenaya wawajadu ma amilu haadiran wax alla wixii aad sameysay oo dhan hortaada la soo dhigaya markii hortaada la soo dhigay kadib ويقول وحدها الكافر قالكي يا ليتني شليتديدي هوغيو باي كنت من هذا ومحان وهاوي ترابا عرو لما معنى بو نقول ادونكي محان عرو نقون وايو بني ادم لا حسابته maxaa iga dhigay carrada uun iska taaleen xisaab lahayn cadaab lahayn ilaahay abuuray maxaan uga mid noqon waay ama waxa laga wadaa waxa dhici karaysa inuu ka wado aakhiro markuu tago riwaayaad baa jira aathar baa jirta mufassiriinta qaar kood soo aruuriyaano markii ilaahay uu bahaimta iyo xoolaha iyo xayawaanaadka kale iyo marka loo kala qisaaso oo la kala xukumo oo dhibka iyo dulmiga isu geysteen loo kala gooyo ayaa marka waxa la dhahayaa carro noqda markaas ay carro noqonayaan gaalkii markuu arko marka xayawaanaadkii iyo xoolihii oo carro noqday iyo wuxuu leeyahay war anigana maanta ya carro iga dhiga laana wax weeye maalinka inuu carro noqdo oo yani wax weeye uu yani fakado si uu inuu ku fakado buu dabaninaya macna ويقول وحلي الكافر قالك يا ليتني شليتديده كنت من أهاض ترابا عرو سي أن حسابتني عذابكن إي حالدنا أدق uga fakado هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم